gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay welinayaan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka, gudoomiyaha degmada Jowhar, ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta gobolka Shabeellaha Dhexe iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa kormeer loogu kuurgalayo nolosha barakacyaasha Jowhar ku tagay kaamamka Alla Aamin, Alla Suge iyo Tawakal ee magaalada Jowhar. waxayna indheen ku sameeyeen booshash cooshado ka samaysan ee barakacyaasha ay degan yihiin goobaha ay u suuli doontaan iyo guud ahaan nooca ay tahay noloshooda, waxayna qaar ka mid ah barakacyaasha weydiiyeen su'aalo la xiriira noloshooda. qaar ka mid ah barakacyaasha oo ugu waramay kooxda mas'uuliyiinta xaaladooda ayaa ka hadlay. bishaana no toman inta aan joogno wax daryaal aan ma haysano, waxaan cunto ma haysano, waa inaan iska garfaasanahay, waxaan u baahan inaan nolol daryeelo. inaan nolol daryeelaa rabnaa muka awada ataa waxa ku anfurna ma haysano wallaahi. marka ilaada ku ron yahay diyaarad iyo dagaal aan ku soo barkacno oo macnaha wax la joojin xoog badan oo baladkii oo dhan lagu kala haadiyaa macnaha meesha ka dhacday. marka nin walba meeshii aadi karo oo naf ka raadi karo askariga. marka aniga meeshaan iska soo barkacay ani ilmeyga ilaa hadda cid nagu soo booqato oo wax nagu soo ilaahay aan wax ka sugeynay. gudoomiyaha kaamka Alla Aamin ayaa qudhiisa ka hadlay dadka degan halkan. kaamkan Alla Aamin baddacaas waxaa joogto tirooyin dhan 231 qoys kuwaasoo ka soo barakacay tuulooyinka afartiisa geesood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayagoo dagaalo ku soo barakacay, ayagoo abaara markii hore ku yimid deganna hadda muddo 10 bilood ah ilaa haddana waxaan nadaafadaas iyo masquulahaas iyo biyaas waxaan ahayn aan weli la siinin. gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe, gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtaar Cismaan Baare iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Tuuxow ayaa diray baaq wadareed. waxaan ka rajeynayaa wufuudda ugu horeysa gudoomiye Farxaan iyo maamulka kaleentaba in dadkan wax loo qaban doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. inta badan horena waa loo sheegay hay'adaha way imaadaan waa la isku sawiraa oo kaliya, laakiin dadkan baahidooda wax ka turjumaya si rasmi ah oo wax u bixiya ma jiraan. dadkan wax qabad ay u baahan yihiin, ma u baahna in la daawado ee laga tago, laakiin wax qabad dhab ay u baahan yihiin. hadduu aan yiraahdo insha Allah waana isgarabsanaynaa anaga maamul ahaan degmo gobol state intii karaankeena inaan qabano oo dadkan aan la garab galnaan diyaar u nahay. saad u jeedo bil ramadaana la joogaa, dad aanan musqulo haysan, dhibaataysan, roobku uu ku da'ayo, cooshadaha ay degan yihiin xaalkooda Ilaahay oo og yahay ayaan kor taagannahay. ishu waxaa waaye mugta waa ka dhan tahay isha macallim ah. gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka Hirshabelle Marwo Farxaan Cumar Carte ayaa dirtay qudheeda baaqan. hay'adaha iyo NGO-yada ka shaqeeya state-ka Hirshabelle waxaa ugu baaqayaa in si degdeg ah dadkan maanta waxay ku afraan ma haystaan badankooda. roobaa soo socda hadda meesha aan taagannahay bacyaashii waa eber iyo meelihii hoyga ay ka geli lahaayeen. marka waxaan rabnaa NGO-yada iyo hay'adaha sida ugu dhaqsiyaha badan in ay ugu soo gudmadaan dadkan dhibaataysan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ahna kusimaha wasiirka Cabdishakuur Shaasha ayaa sheegay in xukuumadda Hirshabelle ay qorshe xasilin u diyaarisay dadka, balse ka hor ay u baahan yihiin dhiig joojin. ka xukuumad ahaan Hirshabelle dadkan waxay u diyaarisay barnaamij la yiraahdo barnaamijka xasilinta oo loogu talagalay goobihii cadawga lagula dagaalamay dadkii ka barakacay iyo dadkii deganaaba in lagu xasiliyo. laakiin inta laga gaarayo barnaamijkan oo waqti qaadanayo waxay dadkan u baahan yihiin dhiig joojin. Maxamed Yaasiin Maadi Maxamed Qalfa, Universal TV, magaalada Jowhar.